أخيرا سؤاشينا لو بقول لحي صدنات سائلكم شيخ waxa uu leeyahay yaa fadli badan insiga iyo jinniga sidoo kale insiga iyo malaa'igta waxay kamid tahay masaa'isha culimadu yiraahdaan waa min fudul ilmi bay kamid cilmiga qaybo waxa jira fudul ajir fudulka waa cilmi iska siyaada ah laakiin wax amal oo ka dhalanaya ma jiro sooma hadda ogaato malaa'igta fadli badan ama aadamaha fadli badan ama jinba fadli badan maxay ku kordhisay ya wax amal kama dhalanin allahumma nooc i'tiqaad ma qaan marka saa'itay hadana culimadu waa ka doodeen horta jinka iyaga meel dhig jinku dooda gali maayaan basharka oo dhan oo iswada oo faasiqiisa iyo gaalkiisa iyo munaafiqiisa iyo mu'minkiisa watana malaa'ig lama tartami karaan iyadana meel dhig waxa la tartansiyo culimadu ka hadlaan wax weeyaan صالحو المؤمنين أما المطيعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أما مطيعين من أهل الإيمان هي ملائكة دتك وناكسن آدمها أما دتك إلهي أطيع الرميسان مؤمنين تاع هي ملائكة كيبا فضل بدن ضدو هالكاسي قلي كرتا ضدو هالكاسي قلي كرتا وانا مسألة هوري لوغا دودايو علماء اي اد uga doodeen Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah bahth dheer buu ka qoray oo dhinacyaha doodoodii adiladoodii ku ururiyay oo niqaashay khulaaso kama dambaysana uu mas'alada ka gaadhay cid u baahan majmuuc al-fatawa mujalladka afraad bay risaaladaasi ku jirtaa waa risaalo qiimo badan oo mas'alada uu kaga hadlay khulaasadeeda qaar kamid ah hadan soo qaadano mas'aladaas wuxuu tilmaamay horta salafkii baa ka hadlay ridwaanullaahi calayhim waxayna tilmaamayaan bini aadamka saalixiintiisa iyo mu'miniintiisu fil jumla duuduub ahaan way ka fadli badan yihiin malaa'igta duuduub ahaan waxaan ka hadlayno waa tafdiil ijmaali waa duuduub laakiin marka la yiraahdo mid marka la yiraahdo tafaasiisha ma geli karno Soomaa hadii la yiraahdo malaa'igta mid iyo bini aadamka mid ha la isugu aadiyo taa wax laga jawaabi kara ma qayb malaa'igta kamida way ka fadli badan tahay qaad bini aadamka kamida qaad bini aadamka kamida malaa'igta waa ka fadli badnaan kara tafaasiisha hoose ma aha laakiin si duuduuban marka mid walba duuduubkiisa la fiiriyo kee fadli badan wuxuu leeyahay marka aymadii salafka ridwaanullaahi calayhim oo mas'alada ka hadlay waxay qabaan in ay مؤمنين تآدمه كفضل بديهين ملائكته عبد الله بن عمرو بن عاص وأثر ككان أولي وكسوين عبد الله وحليه إن الملائكة قالت يا ربي جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا ويشربون ويتمتعون فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا ملائكتي بقى الله وحيكون هذا الرب يوم بني آدم كالدنيا ذات سيسي ويعنيان ويعبيان ويراحيسنيان يا أنك آخر النصي هذا الملائكتنا أنك آخر النصي كون الدنيا ذات سيسي مركز الله وحول تبارك وتعالى لا أفعل ما يلي ويكعليان هذا وحول ما يلي هذا ويكعليان لا بقر صدح قر مركز وحول ربي تبارك وتعالى وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان عزتي إذا كنت أرتيه عد أن لوضع إذا كعمود كو أبوري عرورتيس كبلغ مايو سيدة عد أن كو أبوري أو كلمة إذا كن ومركز سيدة كو أحد آدم حالو أبوري يا آدم إلهي وحكو أبوري لبدي سكعمد بكو أبوري صمه ملائكتنا وحالو أبوري سيدا خلائق ذا كلمة إلهي كن أبا لغو أبوري الله مركب حوليه آدم ونكعنت إذا كو أبوري عرورتي سإنتي وناك سنيد كم مدقي مايو
sida idinkoo kale oo malaa'igta ah oo aan kun idinku abuuray kelimadayda aan idinku abuuray macna meesha marka waxa ka muuqata saalixiinta aadam dhalay ee bini aadamka inay malaa'igta ka fadli badan yihiin atharka waxa wariyay Uthman ibn Sa'id ad-Darimi Abdullah ibn Ahmad ayaa isagana sunanka ku wariyay tayib isagoo mursal ah athar kaloo keenay isagana Abdullah ibn Salam laga wariyo uu ka laga warinayo uu leeyahay Abdullah ibn Salam baa dhahay wax saxaabigi Israa'iiliga ahaa asalkiitu yahuudiga ahaa Abdullah wuxuu yiri ma khalaqa Allahu khalqan akrama alayhi min Muhammad ilaahay ma abuurin buu yiri makhluuq ka karaamo badan oo agtiisa kaga sharaf badan nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam markaas Abdullah waxa la yiri wala Jibril wala Mikail ma hatta Jibril iyo Mikail wa malaa'ikta kuwi ugu fadli badnaa way markaas wuxuu ku yiri kii wax su'aasha weydiinayay baa wuxuu ku yiri atadri ma Jibril wa ma Mikail wa adu ma taqana Jibril iyo Mikail waxayhiin إنما جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر جبريل يا ميكائيل وخلق إلهي السخري أو سيد قرحة يضيح أو كلا أمرا أو سخرا يا جد لوت تشيحي بهايان طيب وما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد بول لكن إلهي وح مخلوق أو نبي محمد كشرف يا كرامة بدل ما أبورين بول ما يجا محمود ليه مركا يعني جبريل إيا ميكائيل وحا كفضل بدن نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه مركا نبي محمد نواه بشر كآدم بعد عليه صومه آثار تاسو مركا كان الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كذبنا وحو كاني وحو يري وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك أرنكا وح خلاف سن أحد صحابة كم إذا إنه كسو غني هاي ما أجيب يعني الصحابة دي إنه يساوي ذا قبين أيام ماشى كم وقته أصحابته السنة ضدك أون نسبة شيكتي أي ماذا أفرط الرعسني غير كودنا سيدا سيقبينه نبي يدا إلهي أولياده إنه كفضل بدين ملائكته رسالة قونية عن المسألة ذا كألي في بولي مركلة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جواب كلو بحيي جواب كلو خلاصة بحثي سمركو سوء ريوحي مركب باللوغن هوريلا في ريبولي ملائكته فضل بدين dhammaadka iyo meesha lagu dambeeyo marka la fiiriyana basharkii aadamaha fadli badan hadda marka la fiiriyo bilowgan hore malaa'iktu wa khalqi ilaahi ateeca on marna caasiin sooma la ya'suuna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun laakin aadamuhu kullu bani aadam khata ibn aadam kuwa gaf badan yahay markii hadda la isla joogo malaa'ikta fadli badan buu laakiin meesha lagu dhamaanayo markii jannada la galo ilaahay sida uu u fadilayo mu'miniinta iyo wanaaga uu siinayo iyo darajada uu gaarsiinayo marka waxa fadli badan buu yiri mu'miniinta bini aadamka marka malaa'ikta ka fadli badan buu marka bidaayadana malaa'ikta fadli badan nihaayada iyo dhamaadkana آدمها فضل بدن بور خلاصة بحثي سالك سكوزة أوروري ابن القيم وأردي سيا يسقون أوج بوي نتيجة أيضا أد بوج بوي هذيك مسألة دو مسألة دوت بدن يكون شرته ساس هسلو بدنيه إن أي إلى الملائكة وحكوا شرت آدمها وحكوا شر النبي يدي وحكوا شر الصديقين تي وحكوا شر أول العزم جي نبي محمد باكم ذا نبي إبراهيم باكم ذا يعني وحويان مركا ملائكته ما قاري كرتيلي ملائكته مركا ما قاري كرت ضوضوب أهم واحد تاسوا مؤمنين تا بني آدم كا إيوه ملائكة شنكي باسو هراي شنكو إيوه آدمها نما قاري كران شنك مؤمنين تيسو آدمها نما قاري كران ملائكة نما قاري كران صوما أيوه قدال بيشوغان بل وحاب اللي قدو تصيح هيبا مؤمنين تا شنكو شنده مقالي يعني مسجلي مايان waaba dood culimada sunnada dhexta la waa marka labada hore u daa doodda iyada ee aad looga dooday oo kutub badan laga qoray oo culimadu aad isugu hardiyeen natiijadeeda markaad fiiriso waa un kaliya ta mas'ala i'tiqaadi inay ka dhalato mooy amal ka dhalan maayo hada billahi tawfiq